Ma rumaysan kartid rikoorka dahabiga ah ee Chelsea ka jebisay Luis Enrique. Guuldaradii ay Paris Saint-Germain kala kulantay Chelsea finaalka koobka adduunka ee naadiyada waxay calaamad u tahay markii ugu horeysay ee Luis Enrique laga adkaado finaal kooxeed isagoo tababare ah. Tababaraha reer Spain ayaa horey ugu guuleystay 12 finaal oo xiriir ah oo uu hogaamiyey kooxihii kala duwanaa ee uu soo leeliyey. Wuxuu la qaaday PSG Champions League, 2 French Cup iyo 2 French Super Cup. Intii uu macalinka ka ahaa Barcelona, Enrique wuxuu hantay Champions League iyo UEFA Super Cup, Club World Cup, 3 Copa del Rey iyo Spanish Super Cup. Guuldaradan oo si weyn u muujisay awoodda iyo diyaargarowga Chelsea ayaa soo afjaraysa rikoor cajiib ah oo Enrique ku lahaa kubadda cagta, taasoo horey loogu tixgelin jiray mid ka mid ah kuwii ugu waaweynaa ee tababare kooxeed. Waxaa sidoo kale la xusay in kulankan uu muujiyey sareynta Chelsea iyo cadaadiska sare ee tartamada caalamiga ah oo hadda loo arko kuwo xambaarsan sumcad iyo lacag weyn. Qodobkaas ayuu ahaa qodobka miiska noo saaran maanta oo aan ku soo qaadanaynay barnaamijkeena bandhiga ciyaaraha. Aragtidaada qaybta hoose ee commentiga nagula wadaag. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalkan la soo gaartay, ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto sidoo kalena aad sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biiro oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.